degmada Mahadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa lagu qabtay ziyaaradii 31aad ee Sheekh Jaliilka ahaa Sheekh Cabdi Cali. Banaanbaxa ziyarada ayaa waxaa ka soo qayb galay dariiqada Axmediyada gaar ahaan qaybta Raxmaaniya iyagoona oogay xilqad digri ah una duceeyay Sheekha inuu Alle naxariistiisa ka waraabiyo. Sheekh Cabdi Cali wuxuu ku dhashay deegaan lagu magacaabo Turfo oo hoostaga degmada Miirtaqo ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sheekha ayaa Qur'aanka Kariimka waxaa baray Macallin Maxamuud Aybakar Sabriye iyo sidoo kale Macallin Gaafow. Sheekhu waxa uu cilmiga iyo dariiqadaba u doontay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana u sheekhaa Sheekh Maxamed Sheekh Cali Maye. Sheekh Cabdi waxa uu ahaa caabid Alle ka cabsada gacan furan. Sheekha ayaa sidoo kale waxa uu ahaa bare iyo barbaariye soo saaray arday Qur'aanka Kariimka ah iyo cilmigaba xifdisan. Tan kale Alle ayaa u sahlay in uu ka mid noqdo dadka soo xajiyay sidoo kalena soo cumraystay. Sheekha waxaa lagu xasuustaa in uu habeenka iyo maalinta ku nooleyn jiray daacadda Alle sidoo kalena wuxuu tusaale u ahaa macruufka in la faro munkarkana la reebo iyo soo saaridda jiil ku hubaysan diinta Islaamka. Cumrigiisa dhammaan wuxuu ku qaatay u adeegidda diinta Islaamka. الموت باب وكل ناس داخله يا ليت شري بعد الباب مدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فاعتل لنفسك أي دار تغتار ما للعباد سوى الفردوس منزلة إن هفوا وفوتا نحن عبيدك يا سيدي نحن الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله إلا هو عزيز جبار إلا هو عزيز جبار إلا هو الله عزيز جبار إلا هو
ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قلتم مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين. ترون فتنة